بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ما أنتم مالتي بركيسنيد يوم العرفة إن شاء الله تعالى دعاء يصونك يصلاة بهلا بضيو إلهي أعماش صالحة إنها أقبله إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى وحنكهد لدونا موضوعات دياد مهمة وموضوع كسابسن sixirka qayb ka mid ah ma ka soo hosgalaya madax xanuunku qofka madax xanuunka joogtada leh ee mar walba madax xanuunka joogtada ay ku soo laabanayo ee la dhiban ee xanuunkaas xal u waaye maara u waaye calaamaadka lagu garan karayo in madax xanuunkaasi uu cilaaqayo lug la galayo min anwaaci sixir qaybaha kala duwan ee sixirka dabcan qayb ka mid ah calaamaadka madax xanuunka qofku marka uu yeesho oo madax xanuunkaasi laylan wanahaaran uu ka bixi waayo oo dhakhtarku u maareen waayo wax cilad leh oo sababaysan aan la garanayn dhiikar sababayan aan la garanayn neerfa kacsanna aan la garanayn qofka dhibaato kale oo ku furanna aan la garanayn madax xanuunka joogtada leh calaamaad gooni ah ayuu yeeshaa waa ka sixirka la lugta leh calaamaadkan qayb ka mid ah haddii ama hal ama laba aad isku aragtid فاعلم أنك مسحور أجو إن آد سحرنتها سيدو كلنا واد إسعلاجنا فبادر بالعلاج ودق مركاينة إسعلاج سيد قفكو وحو يلنا يا حرارة بين الأكتاف قربها دحذوذا كل شوكتا أيوك يلنا يا هر كليل هرأة أيا مرول بقربها كسارا إلى قورت إلى وجهه حرارة بين الأكتاف sidoo kale qofku wuxuu dareemayaa wa fil yaafuukh yash'uru al-mas'uur anna shay'an yakhruju min ra'sihi qofka madax xanuunka qaba calaamada uu yeelanayo waxa kamid ah in uu isleeyahay madaxa ma waxba ka soo baxaya sidii in quraanjo ay ku dul socoto sidii in la dubeynayo oo la garaacayo sidii in ay wax ku raran yihiin oo kale calaamadaas ayuu yeelanayaa qofkaasi calaamadaha uu yeelanaya madax xanuunka qaba ee sixran diiqun shadiidun bacda alcasr salaada casar gadaasheed wuxuu yeelanayaa in laab ciriiriyam in naqasku uu ku dhago oo mar walba naqas joogto ah laabta uu ciriiri ka dareemo waa marka salaada casar ilaa muntasif illeyl ilaa kala barka habeenkii marka laga gaarayo badanka qofka madax sixirka qaba ee masxuurka ah khilaaf صداع العين الذي يلزم الشخص طول اليوم marka qaar madax xanuunkaasi dhinaca indhaha ayuu u wareegayaa oo indha xanuun buu qofka ku sababaya wasidoo kale wadiiqu yasdaadu inda samaa'i alqur'aani qofka naqasku inuu qabto ama diiqad uu dareemo waxa xilliga qur'aanka uu akhrisanayo ama xilliga uu qur'aanka dhageysanayo ayuu sii dareemayaa diiqadaas way ku sii siyaadaysaa كثرة التشجع wuxuu dareemayaa qofkaasi mar walba inuu saxdo sixid marka quraanka uu dhageysanayo inda samaa'i alquraan athnaa arruqya marka qofka quraanka ruqyada uu dhageysanayo sixitaan inuu mar walba uu saxdo sidii inuu cunto ku saxanayo halka loo soo istaago oo kale iyaduna waa calaamad kamid ah خروج الغازات إن قفك غازات iyo daaco kala duwan iyo calooshiisa shanqar ka soo baxda mar walba min الجسم بطريقة غير اعتيادية مع انتفاخ sidoo kale qofka waxa soo buurnaanaysa soo fuuraysa calooshiisa وفي حالة انتفاق المعي الغليظ هذه غازات حسد qofka xaaladda marka calooshaasi ay soo fuurayso oo calooshaasi soo naaxayso waa min calaamaadka qofkaasi in uu sixirka nooca loo yaqaan xasad uu ku sababay qof xasday uu sixirka u sameeyay idan qofka marka madax xanuunkaas yeelanaya inta badan naqasaad ayuu caloosha ku wataa calooshiisuna way soo taagan tahay kaan gabadhii inay uur leedahay ama ninkii in uu marka calooshiisi ay taagan tahay qofku calaamaadka uu yeelanayo waxa kamida ظهر عند بعض المصابين الميول الجنسية وربما يصاحبه نوع من شذوذ أو استحاق ورغم في الممارسة المحرمة قفك علامات كاس مركا قار شهوة لغفريا مركا قار حتى سبحان الله والعياذ بالله قفك حج عليه سنة يا إن حارانتي آذو أو كلا
رغبة ممارسة المحرمة رغبة دونتان جنسية oo qofku uu mar walba rabo xaraan laakiin xalaashiisi gabadhi ninkeedii ma rabto ama ninkii xaaskiisii awoodba iyo taagba u bahayo ama hamadii baba ka maqanba كثرة الأوساخ والروائح الكريهة أرجوكتا أبو قفك يالانيا أفكيسي أو أرتاس مر والبا مد كسو بحضة أي نقونيسا بشكل ملحوظ ومتكرر وحكو صلى الله لابته أي نقونيسا في الأماكن الحساسة أما أفكيسا أما حبين كترنكا أربوستوك لك يالانيا ومركا علامات كقفك السحرا مدحانون كالسحر كمدح لك حري مركا وعلامتها ويالانيا ألم حنون دائم جوكته أو في البطن علوش هوستيده دون وجود سبب طبي سبب لآن إن برا مربع علوش مربع ميل لجمده مربع علوشي سلقة حدق دقائق حنون جوكته نبرو هدي لبار حتى بكتيريا دي لجبار ولا جواهية قبل أو كلا علامات كيران سو حكم إذا التهاب المتكرر إغفشن كسر لا لابط في الرحم مكانك والمهبل أو مكانك مهبل يا مكانك وحكم إنه وحبين كتران كمهبلكو مدنا وحوي والرحم كومكانك ماشي المكانك إن التهابات كلا دوان لغو شيغو إن ليرا هذا مر قبدي بروين بيقبتا مرتون بوين كحران مر حميه باكد ماضي مر بوح لغو شيغو أو كلا دوان علامات كسدو كلانا ويالانيسا سبحان الله قفك الريوين جوكتا سيدا إنو بيصدو سيدا إنو كريودا أي مدو حيالها صدن سيدا كلا قفك إنقور كاللودي دا تعطيل الزواج بو يالانيا سيدا كلا تفريق بين الزوجين قبل نينك ديس فهمي ميسو أما نينك حاسكي سفهمي مايو ضعف الانصاب عند الرجال نينك وحو يالانيا همدي أو كياراته وضعف الجنس بشرط إلا أن يكون سبب طبي وماشي إذا حدي قفك دكتورك وحنونه قوني كل شيء لكن الشيخ عليه هي أنت بدن قفك ضعفي أيو يرانا يا قفك سحر كقبا ماذا حنونك قبل تشويه الجمال بالغو سمينا أما نينك لفتي سوتشي بالغ فول حمينا يا على مدها صورن أيو يرانا يا إذن قفك النوعاس على مدها حنون شوك تأهنا مر والبله waxaa lagula taliyaa in uu u degdego inuu iscilaajiyo ruqyo isa saaro cilaajaad qaato sidoo kalena xanuunkiisaas uusan dhakhtar u eegin si maadiya uu u daaweeyo insha Allah intaas weeyaan calaamaadka lagu garan karayo qofka sixirka madax xanuunka qaba ama madax xanuunka sixirkii uu madax xanuun ku sababay calaamaadkaas uu yeelanaya qaar kamid ah hal ama laba hadii aad yeelatid already ماذا حنون كاسم ما أهم طبيعية لكن ومد وكوكو سببي سحر كاللغو سمية مهما كانت وحضونا النقض السحر كاسم نوع عضونا نقون كرايا أقسامتي عن صوشي بيشري بركا إن شاء الله ساسدوغا نسان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم